الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد maanta oo ay tahay taariikhdu 11 bishii shanaad 2026 waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug kulankaas waxaa shir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waxa ay soo saareen warmurtiyeedkan dhammaan mudanayaashii ka soo qayb galay shirkan ugu horeyn waxa ay bogaadiyeen doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee ka dhacay caasimadda la soo dhaafay iyo midii shalay ka dhacday deegaanka dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed mudanayaashu markii ay arkeen sida hufan ee ay u dhaceen doorashooyinkii tooska ahaa ee ka dhacay gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kadib markii ay arkeen heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee la horgeeyay golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug kadib markii ay tixgeliyeen dastuurka federaalka ee la qabyatiray kaasoo ay meel mariyeen labada gole ee heer federaal ayna horay u ayideen golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug kadib markii ay arkeen waajibka ka saaran in ay u hoggaansamaan shuruucda iyo xeerarka dalka oo ay qaybta ka ahaayeen golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug meel marintoodii sharciga ahayd baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudugna meel mariyay 22 bishii Juun sanadkii 2023 waxa ay mudanayaashu isla go'aamiyeen qodobada soo socda in ay waajib dastuuriya tahay in si wada jir ah looga shaqeeyo hirgelinta shuruucda dalka lambar 2 in laga maarmaan tahay in ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug golaha wakiilada Galmudugna ay hormuud ka noqdaan geedi socodkaas oo dalku ku aaday doorashada tooska ah lambar 3 in ciddii isku dayda tilaabo kale oo doorasho ay u gaftay shuruucda iyo xeerarka dalka goluhuna uu bari ka yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.